macadka Hano Academy oo xaruntiisu tay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay deeq waxbarasho iyo lacago shaqo abuur ay ku siinayaan qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay qaraxii Soobe. Macadkan ayaa sidoo kale la sheegay inuu tababar siiyey 50 ka mid ah kooxaha gurmadka degdega. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Macadka Hano Academy ayaa deeq waxbarasho oo bilaash ah iyo fursado shaqo abuur u sameysay qaar ka mid ah ehelada dadkoodii ay ku dhinteen musiibadii Soobe 14 Oktoobar ee sanadkii tagay. Haddaba maxay tahay hawsha ay qabteen? Dr. Saadiya Siyaad waa maamulaha macadka horumarinta xirfadaha iyo shaqo abuurka ee Hano Academy. Qaraxii dhacay oo magaalada Muqdisho ka dhacay 14 Oktoobar waxaan isku daynay in aan suubino gurmad degdeg ah oo aan siinaynay lacag dadkii dhibaatooyinkii ka soo qabsaday markii aan aragnay inaynan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ay ka dhiganayaan waxaan isku daynay mashruuc kale oo ka fidsan inaan dadkii u suubino waxa ka mid ah shaqo abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho in aan siino. haddaba yaa ka faa'iideysanaya deeqda waxbarasho ee fursadaha shaqo abuur ee macadku uu ku deeqay 12 arday ayaan waxbarasho siinay hadii aan macadka Hano Academy aan nahnay ayagoo naga caawiyeen hay'adda EVA Organization for Women loo yaqaan EOW Charity Integration TV dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa ilaa iyo 10 qoys oo kale waxaan u suubinay shaqo abuur waxa kaloo dheeraad noo ahaa 50 qofood oo aan barayno disaster management iyo taas oo muhiim ay tahay waxa ka mid ah dadkii debdemisyada ambalaasyada dhaqaatiirta iyo booliiska iyo dadka trafficada oo kale officerada trafficooyinka tobanka dumarka ayaa xilligan isku hooyo iyo aabe waxayna la daalan dhacayaan maareynta nolosha carruurtooda iyagoo dadaal ugu jira say ku buuqin lahaayeen booskii ku banaanaaday qaraxii Soobe 14 Oktoobar sanadkii tagay qoyskiiba waxaa la siiyay lacag gaaraysa $500 haddaba wax fikir ma ka haystaan sida loo abuuro ganacsi yaryarka waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Saadiya Siyaad maamulaha Hano Academy. intaan barnaamijka aan bilaabin ka hor ayaan waxaan suubinay team oo barayo sida loo maareeyo lacagta sida loo suubsado ganacsiga oo ay ku dhiirigelinayaan maamooyinka ka mid ah oo dadkii anaga macadkeena Hano Academy aan siinay xirfadda gacanta shaqo abuurna aan u suubinay ayaa wacyigelisay run ahaantii u sheegtay muhiimadda ay leedahay in ay ayaga u shaqaystaan awlaadooda marka waxay yihiin dad aan aaminay rajeynayna inay ganacsigii aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda ideyooyin la yimaadeen ideyooyinkii la imaadeen inay lacagta ku isticmaali doonaan rajo weyn ayaan ka qabnaa musiibadii Soobe ayaa laga barta baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maareynta musiibooyinka degdega ah Dr. Saadiya Siyaad ayaa u sheegtay VOA inay tababar siiyeen 50 ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka sida loo maareyn lahaa hadii oo masiibo dhacdo waxa ka mid ah first aid kii waxa ka mid ah koorsooyinkii kale oo loo baahan yahay inay kala og yihiin group kastaba roles and responsibility galashan qof mas'uuliyadda iyo waajibaadkii group kasta uu saarayan waxa ka mid ah dhaqaatiirta iyo neersyadii waxa ka mid ah debdemisyadii ambalaasyadii iyo dadkii kale oo ammaanka sugaayeen iyo trafficada groupkii trafficada marka waa koorskii ugu horeeyay oo magaalada wadanka Soomaaliya oo dhan meesha ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo run ahaantii 20 sano ayuu wadankeena dagaal ku jiraa laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo soo bandhigay ma jiraan agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Ismaaciil Salaad Colow oo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayay shaqo abuurka deeqaha waxbarasho ayaa hoosta ka xariiqay baahin weyn loo qabay tababar la xiriira maareynta musiibooyinka wuxuuna xusay in macadka Hano Academy wasaaraddu ay sakaashadeen qaraxii Soobe kadib waxaa timid fikradda ah in la sameeyo machad lagu barto in Hano Academy iyo wasaaraddu ay ka shaqeeyaan in la sameeyo dad aqoon u leh isla markaana ka yimaada meelaha ay muhiimka u tahay in ay gurmadka degdega bixiyaan sida ciidanka booliiska debdemiska ambulasta wasaaradaha muxuu ahaayay la xiriira sida wasaaradda caafimaadka
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka wasaaradaha kale ciidamada muxuu ahaay nabad sugidda guddigooda waxa ay ku shaqo leeyihiin waxyaabaha haddii uu dhaco dhibaatada noocan oo kale in ay yihiin xataa gobolka banaadir in ay bixiyaan gurmadka degdega sidaas daraaddeed farxiyo nuur cali waa hooyo leh 6 carruura xilligani waa xaamilo qaraxii soobe waxay ku weysasaygeeda waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur haddaba sidee uga faa'iidaysan doontaa farxiyo qaraxii soobana waxaa ku jira ilmahayga aabahood alxamdulilah rabbil caalamiin ilaaha mahad iska leh hadda 6 carruur ayaa u heeyaa haddana xaamilo ahay alxamdulilah marka hadda kuley wax oo ganacsi ah oo ilmaha seeti oo micnaha ugu sii dhaqaaleeyo oo maanta maalmood dad ugu raadiyo ayaa inta la igu siiyey marka waxaa jeclaha hadartaaneet waxaa guriga ku soo biyaa waxaan xirtaa dhuxul haddana waxaa sii jeclaha inaan sii siyaadsado dukaan dhinaca xanjada sidii qoryihii oomadaada wax walba adi wixii maanta kuishila 2,000 hadaa meel la dhigo waa iska fiican tahay sheekh nuur xasan dhoore wuxuu ku marxuumay qaraxii soobe wuxuuna ka tegay 2 xaas oo leh 14 carruura mid ka mid ah hooyooyinkaas ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iidaysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyo haweenkan haddaba sidee bay rabtaan in lacagtan ugu ganacsato uguna maaraysan nolosha carruurteeda waxaa nooga dhintay soobe aabaheena oo la dhihi jiray sheekh nuur xasan dhoore markaasuu soo wacay anoo guriga jooga wuxuu yidhi soobaa joogaa raashinaan ii soo gaday bajaajaan soo raacay bajaaj ii soo dir talaafiga markaan hoos u dhigana qaraxyaa dhacay talaafiga markaan ku celiyana ilaa talaafik lama heli karo ahaa habeenka dhinsaa u raadineen subaxii 2 saac ay soo gubtay aan helnay wallahi isaga waaye isaga ma ahan ani waxaan u dhalay 5 ciyaal ah gabar kale oo la socotan waxay u dhashay 9 ciyaal wuxuu ka shaqayn jiray tubiiste shaqo kasta uu qaban jiray anaga maalintii ilaahay $1 haduu noo keen hadda waa isaga sabir jirna anaga laakiin haddii aabihii la waayey ilmihii nolol ay u baahan yihiin iskoolay rabaan dugsiyay rabaan hadday jiradan daaway rabaan guri annaga aan leenahay ma degani guri kale iska deganahay nolol maalmeedka dhan anagana soo wada fiirinayaan waxaan dadka ena siiyo dadka walaalaheen ena siiyan u taakulay waxaan aan jecelahay qaas ahaantayda inaan ciyaalkayga aan u shaqaysto cabdulqaadir okay VOA Muqdisho